halis dheelmataan iyo hoog gaaban dabadeed anigoo habowsan balse hugunka reerka soo galay islaam bay iga hortimid waxaan iri hoogtooy miyaad habowta ilaan waad dareemi kartaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si weyn ayaan idiin salaameynaa baahda socdaalka dunida habeennimo wanaagsan maalinimo wanaagsan wakhtiga idiin tahayba waxaan idin leeyahay wakhtigu ha idiin wacnaado innagu waxaynu tahay habeen saq dhexe waxaynu u soo jeednaa inaan duubno muuqaalkan qiimaha badan caawa waxaa ila joogo walaal aan jeclahay saaxiibkayga cabdicasiis oo inoo wada sheeko qiimo leh murti leh macno leh miisaaman una qalanta inaan wakhtigan gelino una soo jeedno habeenkan saqda dhexe soo dhowow ayaan ku leeyahay walaalkii cabdicasiis bismillahi raxmaan raxiim waan dhawahay Mr. Shoode aad u mahadsan tahay mar kale asxaabta waxaan leeyahay mar hore waxaa idin salaamay Shoodena waxaan leeyahay mar kale soo dhawaado habeen wanaagsan maalin wanaagsan caawa waxaan marti u ahay saaxiibkay Shoode soo dhowow aad iyo aad u dhawahay adna mahadsan tahay waxaa la yiri ama afeef hore laho ama adkaysi dambe laho waxaa jirtay sheeko yar intaanan barnaamijkeena u guda gelin oo aan ku afeefanayo waxaa jira reer magaal iyo reer miyi sooma aad iyo aad wiil baa gobol laga keenay magaalkee la keenay reer miyi ahaa wuxuu kusoo degay asxaabtiisa ee magaalka degan si magaalka uu la qabsado ama howlihiisa ugu fushado marka muddo markuu joogay habeenada kamid ah reerkii waxaa ka tagtay korontadii xaafadii korontadii tagtay ha qaab marka waxay ugu tagtay cilad si guud uma tagin korontada laakiin gurigaas ay cilada ka jirtay ee korontada ugu tagtay marka wiilkii gobolka ka yimid oo miyiga ka yimid waxaa loo diray reerka kale deriska soo ogow bal cidda soo ogow inay noo gooni tahay inay magaalada dhan tahay joogteen kale marka wiilkii wuu baxay guriga kula tegay wuxuu tegay dhalinyaradii iyo dadkii oo TV u shidan yahay korontadii u joogto leerarka u shidan yihiin iska mushaaxayo daawanayaan wuu galay jooga ma ka qasna xaafadan TV uu daaran yahay nalalkii uu daaran yahay markaasuu yiri qaraabo korontada ma idin joogtaa baskeen aad iyo aad yani ma dareemin ninkan TV-gan shaqeynaya korontadan waxaan inayba korontadu ku shaqeynayso TV-gan daaran waxay ka mid tahay marka qaladaadka meesha ay imaaday la qabsigeeda marka intaas waa iga afeef aad iyo aad waa si afeefata laakiin ismalihi aniga maaragtay inaad sidaas oo kaleeto ofsaad u galaydo tiimka socdaalka dunida waxaan leeyahay haddaan khalad ama waxay iga dhacaan saas idinka afeeftay waa sheekadani kale waa soo dhaweynaynaa ismalihi maaragtay sidoo uu afeefanayo buu macnaha ofsaad u gali doonaa waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijkeeni kale usii gudubno aad iyo aad waxaan idin wadaa caawa sheeko yaroo gaaban waxaan rajaynayaa inay idin xiiso gelin doonto run ahaantii waxaana laga dheehan doonaa murti iyo xigmad ku dhex jirta muhiimaddu ma ahan in sheeko la sheego ama abwaan uu maanse tiriyo ama uu sheekeeyo balse muhiimadda waxay tahay xigmadda ku dhex jirta in laga faa'iideysto aad iyo aad marka sheeko yar ayaa jirto kadib maanse yariisa aan ugu talagalay maanse gaaban oo aan ugu talagalay sheekadaas ku cabirayso ku cabiray aad iyo aad waxaa la yiri adduunya waxay dhashay la yiri wiil ay dhashay adduunyaha u wada dhashay hal cunug ay leedahay marka adduunyada tilmaanteeda waxaa ka mid ah in indhaheedu ay ku yaalaan halkaas dhakada halka kore aad iyo aad dadka markay halkaan ku leeyahay kore ku leedahay ayadoo waxay ku leedahay dhakada labada indhood ay ku leedahay marka adduunyadan wiilkaas ay dhashay maalin walba uu ka dhumaa way raadisaa maalin walba uu ka dhumaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkeeda ayadoo raadinaysaa waxay aragtay wiil kale oo wiilkeeda u eg oo aanan ahayn wiilka intay soo qabatay korgees yani si ay u aragto indhaheeda koray ku yaalaan dhakaday ku yaalaan si ay u aragto saa uma fiirin kartee saasay u qaaday koray geysay waxay xaqiijinaysaa wiilkeeda inuu yahay aad iyo aad markii indhaheeda kore ay ku aragtay markay ogaatay inuusan wiilkeeda ahayn ay halka ka soo deysay xaasnimadeeda adduunyada waa xaasid iska ilaaliya meesha soo taagan soo deysay cunugii dhulku ku dhacay uu jabay halkaasuu ku dhintay marka inaan adduunyada la israacinin oo aan cunugeeda aadan isu ekaysiinin ayaan waxaan ka sameeyey maansiir maansadaas waxay tilmaamaysaa
anigoo safar socdaal ah oo miyiga socdaal ku tegey deetana kasoo laabtay magaalada kusoo laabtay marka wixii aan soo arkay socodkii aan ku maray anigoo adduunya ila kulantay ila hadashay hawdkaas ay ugu aragtay ay ka sheekeynaysaa Mansiro gaaban waa gartay marka waxay leedahay habeen baan carraaboon hawdka gobolka aadoon halihii gaduudnaa iyo heenta dhaydan lisi jiray u hiloobay waayahani bal soo hubay go'aansaday habeenku wuu madow yahay wuu hoobtay dayaxiina xidigahan la heesaa meeshu maahan hodan iyo howl wadaag dhexdeeda hotel laga casheeyo hurdo lagama helaye oo waanta mirihiyo hobkaan cunaayo hulhulkan xaluusha wadaago eegoon hurdadeyda jiidaa ani iyo dhurwaagan halkan heebo jikin iyo jabis iyo wax la cunaayo ma jiray waxa waaye hotel malaan meel lagu hoydo malaan meel la seexdo malaan nature-kaas wixii ka soo bax geedahaas la cunayaa aad iyo aad waxa waaye dugaaga meesha jooga adiga isku cuntatiin wow waa adduunyo kale ani iyo dhurwaagan halkan heebo wadaagna halis dheelmataan iyo hoog gaaban dabadeed anigoo habowsan balse hugunka reerka soo galay islaam bay iga hortimid waxaan iri hoogtooy miyaad habowta ilaa waad dareemi kartaa adigoo habeen madow socda islaan waayela kaa hortimid inaanay dan kale u socon ama habow ay tahay ama wax un baa soo kiciyay dad khalata ama juudaan wax un ay tahay anigoo habowsan balse hugunka reerka soo galay islaam bay iga hortimid waxaan ku iri hoogtooy miyaad habow tahay aawe heerahaaga iyo hoyga aad ku nooleed wixii tiri islaantii inan yahow hagoogan hami socod ku waashow horta aynu hadalnay halkaa joogsa heedhe yani socdaal bay kugu jira dawada degsan tahay halkaa istaag bal aan wada hadalnay waxaan ku yiri waa adigan iyo hortaagan haraanka iyo baalada halista igu horaaye horta adiga yaa tahay aad iyo aad waxay tiri haddaan wowga soo galo wiil fiican baa tahay wan baruur leh oo weyn waxad baan ku siinayaa reerka ku waxaa la yiraahdaa ilmaha yar markay dhashaan neef baa lagu magacaabaa ama xuduntiisa lagu xiraa neef geel adigaas kale oo kale taa baa la yiraahdaa waxad waxay tiri haddaan wowga soo galo wiil fiican baa tahay wan baruur leh oo weyn waxad baan ku siinayaa reerka ku wado waxaan iri waxadeyda waa hore lay wada muqunshee iyo weerka ciya iyo waraabuhu ku cunine wada hore u sii qaado ka wareeg horteedaan islaan yahay horteeda ka wareeg baa aad wala yaaba xaalku weerariyay waxaan mooday juudaan oo weerarkay ugu soo qaaday anigoo walaacsan marna waranka toogsada ayaa wiilir soo galay wiilkii wuxuu yiri wiilir baa tahay waayashan habarta miyaad waran u sidataa anu waxa islaantu juudaan bay la noqotay waxaan damcay in la dagaalamo aan iska dhiciyo nafteeda ay u soo barartay marka wuxuu yiri wiilir baa yimid waa mid balaayo sidatay wuxuu yiri wiilir baa tahay waayashan habarta miyaad waran u sidataa waayash waxay tiri alla waaba wiilkii aan rabay iyadoo kaliya waxay doonaysaa qof amarkeeda adeeco raaca ay doonaysaa dhankay wax u wada aad iyo aad waayash waxay tiri alla waaba wiilkii aan rabay adigaan ku heshaay wadada naqaadsi aad iyo aad way kaxaysay inankii meel aan wehel lahayn iyo wabiyaday ka tuurtay sidii bay samaysay wiilkeedii bay dushii bay u qaaday oo si u aragto waa qadka ka bixisay markuu wiilkeeda noqon waayeen waxa waaye sara joogii ka soo daysay maca salaam marka waa adduunyo iyo musiibadeed aad iyo aad marka waa adduunyo iyo musiibadeed sara joogii ka soo daysay waa uu noqon waayay wuxuu mudnaayeen bay marsiisay wuxuu kula jeceshahay lugooyo iyo muxuu wax kale ku qaadaysaa hada wiilkeeda noqon waysid maca salaam waxa dhulka ku yaqaan intaana la israacin adduunyada hada adduunyada israacisid halkaas ku geynaysaa xigmadda xambaarsan tahay murtadaysu waxay tahay in adduunyada aan la israacraacsiinin anigoo wareero waxaan dhaayo saariyo la walaacsan sheekada wadaad baan u tegayo warkii baan u sheego wadaadkii wuxuu yiri waa adduunyo inay weel xumaan iyo wada aan saxneen iyo waswaas kugu abuurto wadada maanta haysa ka weecisaabay waranka u afaysay waaxid baa badbaadiyo wehelku ahaay haka weecan ducadiisa wahsiyaanu ka galin subax waagu ii bari anigoo waraaqiyo buug weyn ku roran oo ku wajahan waxbarashada waayeeshi waatan war imtixaanku waa maxay soo islaantii waalneed waa hore ka soo tegay inta yaa ku wadayo waqti xun ku soo dhigay waayeeshi waxay tiri inta waaxid oo maan u hayaa wanaag badan balse ima wareystaan waxaan ahayna may garan ee wiilse wuu iga maqan yahay adigu wiilkayga ma tahay wajigiisa liida waxaan yiri wiilkaaga wajigiisa kayga wuu ka weynaayay warba maad ka hayside waa huru ka lumay wajigaaga iga qari waqti ha iga lumin waaxidka magan galay
maasha allah meel wanaagsan bay ku dhammaatay juudaan iyo waxaa moodiya cabsi iyo waxay ku gelisaba ilaahay baa ka magan gashay aad iyo aad waxaa waaye adduunyada markaa israacisid haadaanay kaa tuuraysaa aad iyo aad marka ilaahay ka magan gal howlahaagana wado howlahaaga kalena wado aad iyo oo aakhiradaada u shaqayso adduunku waa ka mithlil qariib buu yidhi rasuulka waa inaad ku ahaataa qof macnaha beri ka guurayo oo safarka ah laamigaan goonayo kale maaha inaad deegaan ka dhigato maaha inaad issiiso maaha inaa macnaha qaalidiina fiiha inaad ku tahay adduunka ma aha waxaa jirta meel kaleeto qaalidiina fiiha lagu yahay marka walaalkeena cabdicasiis waxaa leenahay soo dhawow kulamo kaleeto kuwaan kasii qurux badanna waa rajaynaynaa insha allah inaan wada yeelan doono sidoo kaleetona hortiina aan kasoo muuqan doono kulan kastoo yeelano hadduu ilaah yidhaahdo waan dhowahay waa mahadsantahay aad iyo aad soo dhawow cabdicasiis